walamru bilmacruuf dadka wanaagga fara buu rasuulku yidhi wannahyu cani lmunkar dadka jidka marayaad la kulantaan wax sharcigu inkirsan ayagoo dhaqankooga ay ka muuqatana ka reeba buu nebigu yidhi munkarkoo ka zuuliya suuqa magaalada madiine nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maraya ayuu arkay inaan dhallinyaro oo reer madiine ah fargal dahab uu gacanta ku sidaa deedna markaa buu nebigu ka siibay dhulka ayuu ku tuuray nebigu wuxuu yidhi ayacmidu axadukum ilaa jamratin min naar fayajcaluhaa fii yadihi midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaato inuu gacantiisa u gashado markuu ka tuuray waa macnuhu waa maxay ummadayda raggeygana buu nebigu yidhi dahabka inay xidhaan waa laga xarimay haweenkoodana waa loo xalaaleeyey buu rasuulku yidhi usalliya nabigeena sala allahu calayhi wasalam sidaasuu uga siibay yarkii yara fargalka dahabka ah innaga maanta imisaan munkar arkaynaa ma zuulinaa carabka ma ka zuulinaa may gacanta ma ku zuulinaa may qalbiga ma ka inkirnaa may bal waxay iska noqotay nolosheenni maanta waa iska caado weeyaan waa iska caadi waxani salaadoo laga tagaa waa iska caadi dadku agtaada macsiyo ku sheekaystaa waa iska caadi dhallinyaradii sidee doonaan dharka u xidhoo timahana see doonaan u xirtaa waa iska caadi waa caadi buu ku leeyahay waa mujtamac oo dhan baa sidaa noqday maxaa la qaban karaa wuu zuulinayay nebigu sal alla alay wasalam munkarka markuu arko gacantiisuu nebigu ula tagaayey gacantiisuu kaga saaray fargalkii deedna dhulkuu ku tuuray markaasuu nebigu yidhi midkiin ma karayaa dhimbiil naara intuu qaado inuu gacanta gashado hadalkaa markuu yidhi nebigu iskaga dhaqaaqay ayay saxaabadu ku yidhaahdeen yarkii yaraa markuu nebigu tegey kadib dahabkaaga qaado oo intafic si kale uga faa'iidayso uga intifaac iibi ciddaa doonto sii markaasuu saxaabigii wuxuu yidhi wallaahi laa aakhuduhu waqad taraxahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wallaahi inaanan qaadan buuhi qaadani maayo maadaamuu nebi maxamed gacantiisii uu igaga siibay oo dhulka ku dhiftay uu dhulka ku tuuray wallaahi inaanan qaadanayn buu yidhi hadda inuu qaato uu iibiyo uu lacagtiisana uu maaragtaan meelo kale u isticmaalo ka xaaraan maahayna waa mubaax waa u bannaan tahay inuu gashado unbaa laga xarimay laakiin qadarinta nebi maxamed ay qadarinayaan buu yidhi wallaahi inaanan qaadanayn buu yidhi waayo nebi maxamed baa iga tuuray maadaamuu nebi maxamed gacantiisa dhulka uu ku tuuray wallahina dib u qaadan maayo buu yidhi qadarka nebiga innakana allah ina fahamsiiyo ku saliya nebiga sal alla alay wasalam